السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadkayga aan jeclahayow haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato fadlan nagu taageer share like iyo warcelin dhiirigelin ay noo tahay. kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal mar kale ku soo dhawaada mowduuca gooriga goob casharkii afraad waxaa qoray mowduuca kan Dr. Saadiq Qiinow. xuquuqda qoraalku waxa ay u dhooran tahay qoraaga. aadmigu waa mirihii uunka ugu qiimiga badnaa waa inin yar oo waliba aad u yar kaasoo eber oo kale ah markii loo eego bayaxawga fagaaga faxan misana waa abuurka kaliya oo maamuus iyo mudnaan ka helay boqorka aan lala wadaagin saamiga milkiyadda uumanka. mudnaanta uu aadmigu helay waxa ugu weyn inuu yahay abuurka kaliya ee awoodda u leh inuu fekero oo wixii u muuqda uu ka dhex raadiyo waxaanan u muuqan. waxaa hibo loo siiyey caqli iyo garasho ay ka aradan yihiin nololayda inteeda kale. abuurka noolaha inta aanu garanayno aadmiga oo kaliya ayaa reerka shaqeeya oo wax ka fahamsan nolosha, iyaga oo kaliya ayaa xiriir la leh walxaha kala duwan ee jira dhammaantood. uunka kale ma jiro jaad dadka la wadaaga tilmaamahaas. sidaa darteed goor iyo goob waxay ugu weyn tahay ogaalada uu raadiyey oo waqtiga badan iyo kharashka badan ku bixiyey. uunku waa bayaxawgaas mugga weyn ku fadhiya, wuxuu yahay wax jira iyo falal dhacaya oo waxaas jira siinaya sawir ay u muuqdaan. in badan oo ka mid ah naqshadaha sawiradaas ma ahan kuwa dareenkayaga uu si dhab ah inoogu soo gudbinayo. sidaa darteed ayaa goor walba iyo goob walba oo bulsho aadmi ah ay joogto waxaa ka hana qaaday dad tiro yar oo isku hawla in ay saabiyaan wax ka mid ah xaqiiqada qarsoon. raggaas sahanka horseeday qaarkood waxay ahaayeen kuwo xagga eebba laga caleema saaray. nebi ibraahim nabadgelyo dushiisa ha ahaatee ayaa wuxuu yahay ninkii ugu horeeyey oo taariikhda qoraalka leh lagu hayo ku xusan, kaas oo dabiicadda ka baadigoobay xaqiiqada mideeda ugu weyn. isagu wuxuu markaas ka gudbay inuu ka gaabsado ogaalada ay usoo gudbinayaan xubnihiisa dareenka ee muuqaalada uunka wax uga sheegaya. sidaa darteed wuxuu gudagalay inuu caqliga daaliyo si uu u heleelo waxay cimiladu ka qarinayso. qadiyadda uu markaas ishordhigay waxay ahayd baadigoobka ilaaha xaqa ah. isagu daruusta uu ka raadinayo dabiicadda wuxuu ka ishaartay inuu raadraaco ilayska ka imanaya cirka si uu u helo jawaabta baadida ah ee ka maqan. suuradda albaqara aayadeeda 75aad oo sheekadaas inoo tilmaamaysa waxay sheegaysaa in ibraahim la tusiyey uunka inoo muuqda, laakiin tusmada gaarka ah ee uu helay ma ahan mid ka duwan midda aanu aragno, laakiin waxay tahay mid uu ku helay fiirada ay baadigoobku la socoto. ilaahay qur-aanka waxa uu ku leeyahay wakadalika nuri ibrahima malakuuta asamaawaati waalardi waliyakuna min almuuqiniin. sadaqa allahu alcadiim. sida uu qur-aanku inoo sheegay 3 habeen oo uu ku khalaaweeyey ilayska dusha ka muuqda ayuu ku helay jawaabtii dhabta ahayd. habeenkii koowaad xidig ayuu ishaartay, habeenkii labaad dayaxa ayuu ishaartay, habeenkii saddexaadna qoraxda ayuu ishaartay. dhammaantood wuxuu ku nacay markii ay noqdeen kuwo xillina maqan xillina muuqda. waxaa xusid mudan sidaas uu ibraahim nabadgelyo dushiisa ha ahaatee sahankiisa ugu bilaabay beegsiga ilayska in ilaysku uu yahay fagaaraha ugu dambeeyey ee lala beedsaday sahanka goor iyo goob. markaas dabadeed ayaa xaqii uu muuqday oo reerihiisa ay ku coloobeen. sheekadan kooban ee uu qur-aanku inoo soo tabiyey waxaa ka muuqda in dabiicaddu ayaan mar walba run inoo sheegeen. wax walba iyo dhacdadeeda inooguma muuqdaan sida saxda ahayd oo habboonayd in ay isugu kaaya sheegaan. tusaale dhig, markaad jirka xoqonayso ma ahan cidiyahaaga iyo jirkaaga kuwo isxoqaya. markaad cirka eegto midabka baymadow buluugga ma ahan midka uu cirku leeyahay. maalinnimadii ibka aanu wax ku aragno midabkiisa caddaanka ma ahan midabka dhabta oo uu ilaysku leeyahay. hadalka aanu isu tabinno ma ahan codka aanu maqlayno. malabku ma ahan macaanka aanu dhadhansanayno. dacartuse ma ahan kharaarka aanu ku yaqyaqsanayno. aqoonta casriga ah waxay inoo sheegaysaa waxyaabahaas aanu xusnay iyo kuwo kale oo badan inayan ahayn sida malaheennu uu haysto, bal ay jiraan wax inooga awdan. goor iyo goob iyaga oo ka mid ah uunkaas naga qarsoon waxay ka mid yihiin agab sahmintooda lagu baraarugay goor hore. raggaas u kacay sahanka waxay ahaayeen filosofiin naftooda ku xukumay inay aadmiga u sahan tagaan. shaqadii ay qabteen iyo xigmadihii ay ururiyeen waxaa la yidhaahdaa falsafad. ereygu waa af Greek oo wuxuu ka kooban yahay 2 erey oo la israacshay. philo oo ah jacayl ama saaxiib iyo sophia oo iyana ah xigmad. wadajirka labadaas eray waxay ka taagan yihiin
aqoon lagu baadigoobo arrimo ay ka mid yihiin uunka, dabiicadda, aadmiga iyo anshixiisa xagga dhaqanka iyo anshixiisa bulshadeed. intaasi saaxiibayaal waxa inoogu eg qaybteennii afraad. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiiso leh. mahadsan.